معناه waxaan ka wadaa ducadan waxa la akhristaa qof kasto qof jecel qofka uu jecel yahay marka uu ka safrayo tusaale ahaan caruurtaada markaad ka safraysid odaygaagii markaad ka safraysid odaygu markuu xaaskiisa ka safrayo qofku markuu caruurtiisa ka safrayo qof kasta oo qof jecel marka uu ka tegayo oo ay ilmaynayaan oo laysa sogootinayo oo garoonka laysku dhowaynayo ama marka waxa weeyaan laxdadii ugu dambaysay iyo imbiriqsigii ugu dambaysay dadka isjecel ay waxa weeyaan kala tegayaan oo gaari kala raacayaan ama diyaarad kala raacayaan ama markaasi doon iyo markab ay kala raacayaan ducadan ayaa la akhristaa especially waxa akhrinaya qofka ka tegaya cidda uu jeclaa